Garamada Midoobay ayaa ka digtay xanuuno kala duwan oo ka dhalan kara cimilada sii kululaanaysa iyo isbeddelka ku imanaya waxyaabaha la xidhiidha hawada inagu xeeran. Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa maanta sheegtay in kulaylka xooggan ee bilihii u dambeeyay laga dareemay guud ahaan caalamka iyo isbeddelada ku imanaya cimiladu ay sababi karaan inay kordhayaan xanuunada kaneecada laga qaado, gaar ahaan xumada loo yaqaan dengue, taasoo saameyn kala duwan ku yeelanaysa caafimaadka bulshooyinka adduunka. Toddobaadkii la soo dhaafay waxaa kulayl xad dhaaf laga dareemay iyadoo hay'adaha saadaasha hawada iyo cimiladu ay sheegeen in toddobaadkan la diiwaan geliyay kulaylkii ugu xoogganaa adduunka, waxaana ay saadaaliyeen in sidoo kale toddobaadka soo socda kulayl dheeraad ah laga dareemi doono dalal ku yaala waqooyiga Ameerika, Asia, waqooyiga Afrika iyo dalal kale oo ku dheerarsan badweynta Mediterranean-ka. waxaana hay'adda caafimaadka adduunku sheegtay in kulaylkaasi sababi doono inay faafto xumada xanuunka dengue ee ay sababto kaneecadu, iyadoo dadka ugu badan ee xumadani ku dhacda ay dareemi doonaan calaamado isku dhafan, iyadoo ay suurtagal tahay inay muddo hal toddobaad ama laba toddobaad lagaga bogsado xanuunkaasi, halka sidoo kale xumadaasi ay dadka qaar ku keenayso infekshan iyo xumada oo ku xumaata oo halis gelin karta caafimaadkooda. Sida ay hay'adda caafimaadka adduunku sheegtay, sanadkii la soo dhaafay 2022 dad lagu qiyaasay 2.4 milyan oo qof ayaa la diiwaan geliyay oo ay ku dhacday xumadan ay sababto kaneecadu, iyadoo laga digay in toddobaadyada soo socda ay xumadaasi ku dhacdo dadweyne badan oo caalamka ku kala nool, taasoo ka dhalanaysa cimilada sii kululaanaysa. Ismaaciil Cabdi Xasan, Saab TV. واو واسبوعك في عايز صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa